سكيلو من طريق مريء نادي فيسبوكيدا كجيرو كي جامعه meedho wadada yaacsa hargeys waa wada lindana la tuujiyana male walaal ma kii jaamacada weey kudi xabadan dhukuran ee reeb raac balaay la dhukuranta wuxuu yiri hablihii hargeysan wuxuu ku hargeyso wada lindana tiro meel la tuujiyo هلو كل وناكسن صاحب يالكو سو دhowaad dayax films iyo barnaamij ku saabsan arrinka soo aragteen surwaal ayaa la bixiyay calan hebel ayuu sitaa calaamada cunsuriga ku dhaji godku galaba aynu banadno iska soo muxibahees qaarinay buraburayaan la moodo kuwo istaanka barorta loo goleeyay adna soo xidho khamiis adiguna niqaab iyo dharkii diinta ku boodbood oo arfankiiba sow kuwa naxashka ku galbinaya hadda kadoloobso ku warramay ee ii waran oo xaalku halkuu maraya goordho weytaanigoo daawanaya youtube-ka iska daawanaya xataa video duub isma lahayn ama dadka barnaamijkiisuma isma lahayn anagoo halkan youtube halkan ay iskaga jira baa waxaa igu soo baxay nin dhagax sita oo aada moodid inuu ooyayo oo leh 3 bilood 3 habeen iyo mooy 3 xilbiriqsi wax noocaasa baan la sheekaysanaya ama xidhiir wadaag lahaa inanta la yidhaahdo Nasiim Cabdillaahi Sooraan oo uu dhawaan guursaday fanaanka la yiraahdo maxamed wardi ama qamar sugaan saad u taqaanaan Nasiim wanigi ma tidoo lahaa Cabdillaahi Sooraan Cabdillaahi Sooraan xamoodi dadku inay aad u yaqaanaan laakiin dhalinyartu ma garanayne Cabdillaahi Sooraan Allah u naxariiste waxa uu ahaa nin fanaan oo Sooraan kan iminka joogaad garanaysaan isaga ka kala ka caansanaa oo aad loo yaqaanay oo magac weyn ku lahaa bulshada Soomaalida markii dambe laakiin wuxuu ahaa sheekh caana oo fanka intuu ka baxay ayuu noqday sheekh bari dhaweyd oo wax badan baan ka soo wareegin ayuu ku geeriyooday magaalada Hargeysana loogu sameeyay asqaran marxuum Cabdillaahi Sooraan waxaan Ilaahay uga baryanaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo labada jannada uu furo Nasiimna waa inantiisii oo de waxay ka mid ahayd ubadku ifka kaga tagay sidaas baan idin lahaa waa ina Cabdillaahi Sooraanna Ilaahay uu naxariistay de nin la garan waayo ma ahayn Cabdillaahi Sooraan nin la garan waayo ma ahayn haddaba mid halkan oo ku yaro dhukuran baa inantiisa ka dhigaba dhagax baa la sitaayo dhagax baa lagu dilay dhagax baa la sitaayo wuxuu raadinayaa qabar suugaanimay buu leeyahay marka siday ila tahay ma sida uu isagu sheekada u dhigayo burca uu ka yimiba burco ayuu ka yimi oo deynta reer burcana ma hayna maxaa waalay deeda waa ka hargeysay yimi waa ka hargeysay dadka weydiinaya qabar suugaan iyo arkay ku kalo isna la kin jaamac baan jacayl u qaaday ku kin jaamac waxa guursaday shiina culi marka waxaan doonayaa bal hadda ninka iyo akhbaartiisa iyo jacaylkan uu sido inaad ila dhageysataan oo dhageysano sida wax u jiraan Ariyare walora raba insha Allah ma dhacay qamar Suudaan markis qamar Suudaaniya walaal ma iman anarkii ma dhacay qamarku noo sheega qamarku sagaal gaadha noo soo raacnay hargeysa ilmaha ugu dhex dil lahayn qamarku xabad yaro meelahan fanka ka dhex bidhay soo loo qamar Suudaan la dhax هاي محو كوسمي واكير برد فك بيرانا كان 3 بلود 3 ساعات يسدح البرقس لا شيكيسنay ba hal habeen ku kaxaysan hal habeen bay oo sagu dhacday wallahi baan teenay baa ku fandhay ilbaa kaga dhameynaya waxaan qabto oo hay sagu dhacday horta waxaan ku yidhi saaxib horta qof kastoon iyo talo baahan u yimaado goosoo naxariis badanay waxa ku naxariis badanay waxa ku yidhi saaxib horta fanaanka daaniya waa kan la joogay sig laftirkiisu inanka kale dhaxama karnay ninka kale la talaan bixinaya ay brother blue sita waa Cabdikariim inankiisa kuna hadda ka hor balbalaarka jaraadon isaga inaan saaxiib nahay halkan aynu wareysi kaga qaaday baa la joogo marka waxaan u maleynayaa markii hore sheekada rumar mudina sheekadu fanaan iyo Soomaali haduu fanaan yahay marraga qalbiyada kaga kaadi baa lagu dhoolay kaga kaadi baa lagu dhigay Cabdikariim waa rutii maskaxdu naga tuujiyay liindanaan iyo liin macaan xawga oglay wadan reeb raarto fari reeb caadi ma
wuxuu ku leeyahay hadduu fanaayin maragga ayaa lagu yidhi qalbiyada kaga kaaday gebigiisu wuxuu yidhi maskaxdu lindhanaan iyo dhinaca nagaga tuji calaashaa waa erayo faniya raadiyashu mu maskaxdana gafray uu ku fura tuush adigoo soo taladeedu waan ku siiyay iska hor hadda doonto talada hayna ka tala baahan ama aamus waay saaxiibkii ma tala baahan saaxiib cabdi mid baan ku sheegay cabdi kariim baan nin yaar waan ingaraansa tushish baan maskaxdayga gafray ku fura yaar ninku gabadhan inta soo dhaweey shigisan nasiim sooraan baa musooraan baa doortii fiil buu annagu makii gabadha ka guursaday baan miyuu waasan daa horta maxaa u geeyay gabadheeda xawgi wallahi fandhil baan ka dhamaynayaa ay nimar maskax tala doonaysa soo ka ciyaar warqa war sugaano tanigana waxaad saa usamaysa waa uu ogayaaba ka yiri halka wax laga yaaba inuu talaata u dhashay annagu reeb lacag calankooda oo la siin miyuu waasan daa horta maxaa u geeyay gabadheeda xawgi wallahi fandhil baan ka dhamaynayaa ay nimar maskax tala doonaysa ka dhaban ma fataay bal isku dilay waan soo lugeeyaan quurisan ilmaha hargeysa siraaldaad ku qabatid anu nasiim sooraan baan hay mise waxaan hay wax nagala hadal waxaas way wax ku jaan man arag orti mo arag la joogo arag wuxuu la tilni kaanu ma arag nin kale la tilni qamarkaas iska daadi laga guursaday shimbir kale ku qabo orti iska daa iska lu mun dariiq mariyo nadi kulaha kan kale histiga la tilnaya iska daa iyada hadii laga guursado shimbir kale ku qabo marka reeb raac shimbirtu waxay yaqaanaan gabadha iska lu mun dariiq mariyo nadi ifku mas'uuliyada ku jiro oo kii jaamaco meedhaba wadada yacsa hargeysa waa wada lindhanaan la tuujiyana male wala ma kii jaamaco wiil kowdhe abadan dhukurane reeb raac balaay la dhukuranta wuxuu yiri hablihii hargeysana wuxuu ku hargeyso wada lindhanaan tiro meel la tuujiyo hargeysa qabla hargeysa qaade ku dhano tu kursi ma kii jaamaco qamarka sheegaysa mumkin jaamac ana taasay igu daran wayo way wala ma kii jaamaco ya bamba tahniik nu kursi ma kii jaamaco waa kii jaamac kii jaamaco may waa nasiib taasay igu daran taa imika ana kii jaamaco soo ku taga kii jaamac shiino cunay baa guursadaa la yiri guursadaya allah oran kii jaamac shiino cunay baa guursadaa trigo way baateen naga aamusanay midaan respect lahayn ixtiraam ku lahayn oo waxaan waraaqa qorray ma iska daa bariman ku tusaya shiino cunay waan dilaya ma aragtay meel xagu joog misaadiba qamar telefoon baa ka soo dhex galay iska raalaha meel macaan bay marisay shiino culi waan dilaya bay marisay dhaata kugu furan may waxa ugu furan google istig waayay dabaaldii isticmaalaya heer burca waxyaabahan ku taageer wax ka mid ah iyagiiba qaamuusa ma dhaata kugu furan yacni meed waalantii uga jeeda ma filan ma dhaata kugu furan ma dhaatada iska xidha guursi waa gabadhiisa kii goormadahay anigu goormayna isaga waan garan oo finaan la yaqaan kii goormadahay waxaan nahay kii dhacdhameelayaasha noo soo dira dhamaydlahayn mid baan ku sheegay saaxib horta buuq uma fiicna iyo dabirada weynaysid dabirka imka iyo imka wax dabireeyaba hadaa argo ku dilaya isaga shiino cunay runtaana laga yaabo markan dabarka ku dhigto inuu fiiga siga iibsado ama Lamborghini garaadada laga herto hawada wala waa sax imika aniga horta chance mid bay soo dhiibi kii jaamaco ku taga wayno saalisaday sug talaygu socotay horta aniga isad ogtiin beer saclan hayo nin hanti ilaahay iliyay baan soo cabirnaa koostalooyin kana lagu imaado markaan xilligii talada way dhaaftay mid baan horta ku sheegay gabadhii waa laga guursaday oo wax noqotay mid la guursaday waxa kartay maaha bacdi laga jaray hadaba mid baan ku sheegaya بعد حقوقه ترى سو كمو جرنه iska ilow amar waxaan iska ilow mid kale oo 20 baa ay waxa uu dirkii taamaco guursaday aysan cunay xagu jooga jira way hargeysu jooga hargeysu jooga meela fi eerkaaga ma sii dhiibi futis buu yibsaday futis waxay ma duqaan oo ma taxi ah oo kii jaamaco ceebay kii jaamaco ceebay wayo fideoga marka hore aragtida daawatida waxaad moodaysaa inay runka tahay anigu waxaan islahay inankaa miskiinkaa u gargaaro bal arrinkiisa gala
laakiin markii dambe walaalkii waxaa soo gelin midaada Sakariya Jakarta marka isagana subscribe saar oo nin dhalinyaro oo fikrad fiican soo kordhiyay markii dambe walaalkii sheekada inay film ku qorantay film marka way iga baahday laakiin waxay sameynayaan hab masraxiyeed waxaa laga yaabaa iyagu inay hadda matalaad ka tahay laakiin si caadiyan ah mararka qaar arrimahan oo kale way u dhacaan oo waxaad moodaa inay dareen bulshada ku jira ama mawduuc bulshada ka dhex taagan inay sameynayaan oo hab matalaad ay ka sameynayaan laakiin mararka qaar way dhici kartaa oo wax dhici karaya oo jiri karaya qof aad muddo soo wada sheekaysanaysa in qof caani guursado ama in qof kaleba dee ay saroosaan marka waxaa laga yaabaa ninkeena dhukurani inuu siri u hadal dad aan hadli karaynin ama metal dareen ka mid ah bulshada hadda jeer qofku markuu wax tabiyo ama uu riwaayad ama barnaamij matalayna waxa wanaagsan inuu ka turjumo dareenka dadka wax u matalayo waayo waxa dhici karaysa in arrimahan oo kale iyo arrimo ka waaweyn ay haystaan oo ku dhaceen qof aan hadli karin ama dad aan hadli karin oo u baahan in loo hadlo marka waxa dhici karaysa dee inay wax jira ay dadka u matalayaan laakiin iyaga samays iyo matalaad ka tahay samays iyo kan kale wuxuu leeyahay kan jaamac baan isaguna aan jecelahay kan jaamac ayaan jecelahay marka way dhacdaayo anagu waxaan arkiba nin gabadh fanaanada oo aanan doona kana ka jago jecel haddaad magaceeda lagaa maqlo soo hadal qaatid weli bila caadi ku garaacay burka iyo joorida iyo dhagaxa alla wuxuu hayo kugu dhufanayo wuu jecel yahay mobilkiisa shaashada u saaran tahay way ugu soo dhacdaa passwordka waa iyada meel kasta iyada u saaran hadduu qof magaceeda ka maqlana hadda magaceeda hadduu ka maqlo waxa u eegna wallahi qarqar ku saaray marka waa wax dhaca oo si caadiyana dadku hadda jeer dadkan bulshadu dadkan caanka ah siyaabo kala duwan bay noloshooda ay u saameysaa ama ay saameyn ugu yeelataa marka iyagana waxaan leeyahay hore socda qaamuus ahaana reer dhaco hadal baa ilaahay u dhiibay dadba waxay dadka qaar qoloba intii wax loo dhiibay oo qoloba wax loo qaybinayay iyaga qaybta hadalka loo qaybin marka madhaataada kugu furan iyo lindhanaanba maskaxda igaga tooji yacni waa kulayl maskaxda marka lindhan lagaga toojiya waad dareemi karaysa iyo habla hargeysa waa lindhanaan meel la toojiya male wixii deelqaaf ee ka dhaca matalaad ahna idinkana idinkaraa la gelinayaa iyaga laftirkoodana de kama aha si ku talagal ah ama wax cebaysa aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal mawduucana caw iska caawa waxay noogu xidhnaaday inta